بشير يو براجيني وين لكشوية إسقى إنه ما طلع يدري إنه مرتي وهانه هذي ويسيري بلادي لا يكون وياي بلا حاشي أطلع يكون مهل عليه وحكون مهل عليه على ما تبى أخيارتي أنا شرفت هاي سوق قتيمي وبرو الوجهة أفصومالي يسبدل يسلم بوشيدين شريو وده كأني ما كلت شو قبل دبعتها على واحد يعني واحد اللي إنا بيسكوسدي مثلا إنا أنتي صويا عروضة مركا حافظي هير كودي بيتيمي مركا صوت ضي طب ده أضيء إنا أنتي بكويري محاكو داعي بالكويري أنتي صوت مركا واحد شري خورو كان خورو أيو كان أدوبا ليني ومحاد وذاك اللي كنا أضيء كنا وجوجا إنا أنتي هذي له كورو يهي إنا كويدين وجوجا محاد له هذي ويد واحد يقول أضيء كنا شراقة وحنا إسلام تنضاد كهوس مريا هذا هو يسوى الصعود يعني كده بدي بقول جودي بقول واحد بالجوار محل يكون عين فيش تدا بدتيم والله يا والواقف الصومالي قاعد يحكوا فيه من الكلام بيقول يروح يقول هذا هذيك بالخاطر قرنيه دليلة تقول قرنيه واحد يشرا الله شرح وحلو حن قرب ما يصير واحد ككله معناه marka la yaab walaal waxa kala fiidba ee Soomaaliga cusub uu ka jira wadankeedii uu yaala inta marka ka gudbo dad hore u soo qosol u baahnay qosolkaani ka daayo hadii kale xaaladda deegaanka turkiga waxa jiray in hargeysa joogi jiray marka wuxuu aaminsanaa inuu yahay xabada haruura wuxuu iska ilaalin jiray shimbiraha wixii baal inay cunaan ilaa xabada haruura marka sidoo tii uu aaminsanaa waxa lagu yiri maalintii marka wax uu tirtiriyaa wuxuu yiraahdaa adoo moodka baqaaga mid haruura ismooday ma ka maagtay digaaga hadba meelka duskaaga iyo luqmaridaada madmado xuridaada maqsimo isku xirkaaga ma dhageysatay qooqda markay tirado qolta la mid haruura tahay marka taan doonayeen in arrintu naga noqotee nin alka joogo aan saaxiibnayo oo garanaysan iskuulkana macallin ka ahaan jiray imka waa bay la jooga cali ducaale oo madax sare halka soo fadhiyo habeen dhaweyd baa wiigi hore maraan ingiriiska joogaa telefishin waraysiisiyo markaasaa waxaa ku jirtay maanso la yidhahdo darmaan gugub markaasuu igu yidhi maansadaas noo mari war iska sheekaysan doona inagu waynu wada joognaa marka waxaan halkan idinku hayaa dhowr maanso oo aan idin marin doono haddii aa wax fahmi weynaana waan idin fasiri doonaa marka waxaan jeclay inaan ka horraysiiyo marka ugu horraysa hal mid oo ku saabsan maaso nin imika wasiiraha oo aanu saaxiib ahayn aan isdhaafsanay oo la odhan jiray cabdilaahi geerjire marka cabdilaahi geerjire maasadaas aan isdhaafsanay waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi oo bixiyey uu doonay inuu ogaado bal waa ku soomaalidu siyaasadda ay ku waalatay inuu ogaado waxaa madaxweynaha la yidhaahdaa waxa uu yahay marka ugu horraysa iyo habdhaqankiisa iyo sida uu siyaasadda ummadda u hogaamiyo ayuu ina weydiiyey ninkaasi markaas maasa la yidhaahdo madaxweyne waa kii ayaan doonaya inaan maadaama dadkeena lagu wareeriyey siyaasadda aan idiin horraysiiyo aan idiin bilaabe maasadu waxay tidhi wuxuu yidhi milgaha gabay murtidii iyo sarbeebaha mahmaahda lagu ladhay micnihii iyo naxwaha culus nin kastaa ha mariye waxa uu ku mudan yahay maasada hoggeed iyo sugaanta huulka ah sida loogu meeldiyey boqorraysi loo dhuuq miila laga dhigay badi la isku maandhaaf murankeeda sixi waa malaheedu yaabdhay nin kastaaba maankiisla noqoy mudh iyo toos madadaalo weydiyo iska maararow noqoy haddaan macallinkeediiyo hal abuurka mudankee beriga soo mushaawiray madan uu ka xaadiray marsallahana loo dhigay dadka cidi kaga maqnaanayn dadkuu wada macsuun yahay meertada xilkeedii mase loogu siman yahay markab wada shukaamaa midba dhinac u toocsaday murjis laysla beegsaday ilamaa miskaa sare lagu wada usuusaday mara aan waxgarinayn iga dhibay macaankii xaajada maroorka wuxuu yahay masaalkeed inta uu muducigii ku maqnaa markhaatiga sawkii madaacay miladii ku xaabsaday arrinkii balkadayay ee loo midaysnaa afartaas sidii mayay ama roob mahiigaan maasheeyey dunidii dhulka ma isku laba rogi wuxuu yidhi macnihii guud geerjirow midhkaadhi waa ninkaan saaxiibkahay midhkaa tiri anigaan ma suugay madaxweyne waa kii markuu waajibkii gudo milgihii iyo xilkuu sidoo dadku kaa masmuutaan inuu waajibkiisa ka soo baxaa
madaxweyne waa kii maatada daryeela madaxweyne waa kii hirka muuqday garan kara mushkiliya dhibaataya way horay ku yahay madaxweyne waa kii mahmaaha soo baxay murti kale ku dari kara hadalkana macayn kara madaxweyne waa kii runtu ay u tahay magan beentuna ka madowdahay madaxweyne waa kii muqorraysi tuugiyo musuqiyo xatooyadu noqon meheradiisa maalka aqoontiyo mushaarka nabadgalo madaxweyne waa kii meertada xilkuu sido maalintuu ka soo dego magac fiican kaga taga dadkuna ay u maanshaan madaxweyne waa kii intuu la isku maagiyo milil hore daweyn kara madaxweyne waa kii marwadiisa odhan kara maamuuska sharafeed inta aad ka mudan tahay maandhay ku koobno madaxweyne waa kii dadka uu u madax yahay military ka weerayn oo ciidan meel fog togi laa oo muquulin laa cadow isagii ku meernayn madaxweyne waa kii masalaha qabiilkiiyo mudnaanta reernimo mayalkiisa daafiyin madaxweyne waa kii macamuusha darayada maxastiyo dadkoo qaday maydkiiyo xabaalaha maryihiina kala bixin madaxweyne waa kii maskabkiyo kursiga jilan intuu xeerka baalmaro manaxaan sidiisii ku muraadsan danihii madaxweyne waa kii magaloodsiiyo midna aanu ku lahayn maaraha xadiid iyo iskaraab madow iyo bira aan mushtarinayn xadiidkiiba qaaribiga garaanmo wixii laga haray dekaarayaashu gubtay wixii baa iskaraabki baa la iibiya madaxweyne waa kii miisaanka waayaha marinada siyaasiga muracyiinta garan kara hadba dhalisumu wasbud maansadu way dheer tahay badoonina taa waqti idinkaga qaado waxaan uga jeeday uun dadka siyaasadda hogaaminaya in qofku uu noqon karo inuu garan karo danta iyo maslaxadda ummaddu ay leedahay aanu noqonin qof lagu doorto ama lagu eego reernimo lagu soo dhawaysto waxaan jeclay tix gabayoo kale inaan idiin gogooyo iyadana waayo waqti fara badan waxaa laga yaabaa in marka meesha lagugu ceshiyey 6 ayaa tiriyey waxay ka arooskii hadraawi baan ka tiriyey maansada kale waxaa la yidhahdaa afdhabaan dhow oo waxay ka hadlaysaa waa maansa iyadu waxaa kaloo aan halkan idinku hayaa gabay la dhaqan caafimaad oo isagana aan ku 1987 ka tiriyey hotel al-Quruba ee magaalada Muqdisho dadkan abwaaladii waqtigaa joogay oo aan ugu yaraa aan idhaahdo dee daada inama ogole aan ugu yaraa ay meeshaas waan idin maqashin karaa tartanka raggii ka qayb galay waxaa kaalinta koobaad galay cabdi bashiir dhabuur ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo kaalinta labaadna waxaa galay maxamed cali kaariye ilaahay naxariista janna isagana ka waraabiyo guddiga garsoorka waxaa guddoomiye ahaa mustafa sheekh cilmi madaxweyne mar indhaha way mugeysto qom jooga xuseen oo faarax iyo nin la odhan jiray cabdilaahi wayabo imkaan firayay isna hargeysa joogo marka waqti badan idinkaga qaadi maayo marka waxaan jecelahay maanso kale oo iyadana aan ii tirinayo oo berigii ugu horreysay aan guddoonka ahaa waxaan idhi ninkii sodogay ahaana isaga tego deedna ma gabay la yidhaahdo inanta ii guuri baan tiri adigoo 7 dhinac ka galay marka hore inaan mikrofoonka ku wareejiyo markaa kadib aan waxaygan una bilaabo xisada uu yahay ereyga suugaanta waxa ay odhan jiray baa la yidhi 4 siyood oo kaliya gagaabo banaan ugu macnaystaa inkastoo sayidii odaydii iga horreeyey ay macneeyeen marka waxa la marka nin uu beel u soo hantago ee uu soo arko meel naqbaad iyo doogle ee uu soo arko oo aan xoolahana duulin u lahayn markuu beeshii ku soo noqdo waxa uu odhan jiray meel heblaayo suugaan bay leedahay macna marka naqaas iyo doogga iyo hirkaan madow iyo waxaas ayaa la yidhahdaa suugaan waxaa kale oo loo macnaysta oo la yidhahdaa hadalka aan la fahmi karin ee loo yaqaano gunuuska ama gunuunuca waxaana la odhan jiray suugaani hadal ma aha waa macna ninka hadalka ayaa loo ninkaas uu suugaan hadlaya waxa kale oo la yidhaahdaa oo lagu macneeyaa suugaanta ereyga waxaa la yidhahdaa waa iidaanka hadalka waa ta la yidhahdo hadal aan suugaan lahayn waa hilib aan mindi lahayn ama hadal aan suugaan lahayn waa soor aan iidaan lahayn marka taa waxaa iyadana la yidhaahdaa waa suugaanta hadalka ayaa la yidhaahdaa suugaantu waa iidaanka hadalka magac macnaha afraad waa kan aynu u naqaano waa baahsan oo ah ay ku jiraan gabayga geeraarka guurowga saarka shiribka way fara badan yihiin kaasna waxaa la yidhaahdaa suugaantu ka mid yahay marka waxaa kale oo loo qaybiya sidii hore odayadu inoogu sheegeen wax kastoo qof afkiis ka soo baxa waxaa la yidhahdaa waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo waa tix iyo tiraab tixdu waynu garan karnaa waa wixii waqdhac habdhac khaafiyad iyo miisaan leh sida ay u dhacayso oo kale aad badmaasanta
oraahda caadiga ama hadalka caadiga isaguna waa sida ay inoogu sheegay uu sayd inoogu sharxay oo waxaa la yidhahdaa iyadana tiraab noqonaya intaa iyadana markaan ka gudubno waxaan doonayaa in suugaantu siday ku timaada suugaantu iskama timaado ninkii wadaniga ahaa la odhan jiray cali xuseen xirsi waxa uu yidhi haddaan gabayga uurkoo buka iyo arami kaa keenin asaan oral jacayl iyo xanuun kugu igbaaraynin afkuunbaad ka leedeed wuxuu ararma yeesha iskama timaado way sababi jirta waa inaad inan qurux badan oo hortaada soo fadhida aad jeclaatay oo tima dheer oo jalaqsan oo wixii aad haysayba aad ilowday ama waa inaad muxuu ahayto geerin in la qaaday oo uu maqan yahay ama waa in sababi jirtaa dee haddaan gabayga uurkoo buka iyo arami kaa keenin asaan oral jacayl iyo xanuun kugu igbaaraynin afkuunbaad ka leedeed wuxuu ararma yeesha waxaa kale oo jirta hadraawi waxa uu yidhi markuu sifaynayay saaxiibkayow heedhe safar baan ka imid dheere markuu hore salaan diiran marka xiga samow heedhe ka nixisi dalagtayda sacab farabadhnaantayda suugaanta yaabkeeda salka iyo fadhaa keena waa in aad u heshaa dee meesheedii marka xiga sugnaanteeda socodka iyo falkaa sheega suugaanta waxa la dhaha waxay la saan qaadaa hadba waqtiga iyo waayaha ay bulshadu ku jirto oo layslama yaabayo wixii aad shalayto tidhi haddaad shalayto nin ammaantay waxaan xasuustaa 89 ayaa markii shareeca barnaamij sameeyey ilaahay hab naxariistee waxa uu ka hadlayay shalay iyo maanta wixii raggii ammaanay xukuumaddii waqtigaa joogtay marka barnaamij buu ka sameeyey la odhan jiray shalay iyo maanta waxa uu soo qaatay ninkii la odhan jiray ilaahay hab naxariistee cabdi maxamed aamin oo abwaan weyn dee ahaa wuxuu shalayto siyaad baad ammaanto waxaad tidhi cimrigii jiriyow maantana waxaad tidhi mini la yaaba yaasiinka marka shalay iyo maanta wuxuu kaloo soo qaatay ninkii la odhan jiray maxamed cali kaariye waxa uu yidhi shalayto waxaadna lahayd hanuuniyaha hogaamiyaha haybad loo siyaado hadal yari iyo hawlbal kii saasadna lahayd maantana waxaadna leedahay sususa calakadeeda husoodi maashay isu qabanaysa shalay iyo maanta wuxuu noo soo qaatay ninkii la odhan jiray cismaan yuusuf aadan allaale ninkii yidhi xisbigu waa macallinkeenna kacaanku waa macallink siyaadna waa macallinkeenna xisbigu taasaadna lahayd maantana waxaadna tidhi burcadii jaseeskiyo waa yahay bustaano markay baanu kaa qornaa wuxuu noo soo qaatay nin reer baargaal ahaa axmed nuur yuusuf la odhan jiray ahayd naxariista jannaha ka waraabiya oo sameeyey heestii la odhan jiray waan ku daba soconna salabka waan sidana maantana waxaadna seesaada qaaday ayuu sameeyo dhammaan reer waqooyi aaway maxaa odayadii ka dhirifshay dhallaankii maxaan u weyn ayaad jaalo haddee markaas taasaan difaacaya markaas nimankaas la maagay ayaan doonaya inaan difaaco hadraawi 1987 wuxuu tiriyey maasidii la odhan jiray saxarla maansidaa uu tiriyey waxa uu yidhi waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weligaa saxarlay afududaan muxuu leeyahay iska samir u yeelo soo mu odhan 87 maasida iminkaan akhriyay buu tiriyey ee la yidhaahdo sahra heedhe sahray heedhe muxuu markaa leeyahay heedhe sahray heedhe waxba samir ma liileeyo berrit iyo siday doonto sug cadeedda maqan maaha waxba ha sugin berri buu leeyahay markaas halkan laakiin isagu kasii araaranaya markaa muxuuna yidhi saxarliya abbaarteeda socod barashadii dooda anigoon wax saaraynin waa inuu qiil samaystaa waxba samir ma liineeyo hasan wicin qofkaa jeeda hana sugin qofkaa maarmay hana sigan mar mooyaane marka halkaa waxaad ka arkaysaa suugaantu inay la saan qaado waktiga iyo waayaha ay bulshadu ku jirto waxay ka turjuntaa dareenka bulshada markaa lala joogo ama bulshada waqtigaa joogta taa iyada lafteeda waqti kale yaanan idinkaga sii qaadin siday suugaantu ku timaado iyadana waan sheegay tixiyo tiraabda waan ka hadlay waxaan doonayaa